gudoomiyaha gobolka Sanaag maayirka degmada Ceeri Gaabo taliyaasha ciidamada kala duwan ee gobolka Sanaag iyo xubno ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida Somaliland oo ayaamahanba ku sugnaa magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo ayaa maanta waxa ay si wada jir ah u dhagax dhigeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceeri Gaabo oo muddo dheer xidhnaa isla markaana ay burbureen dhismayaashii iyo garoonkiiba garoonkan diyaaradaha Ceeri Gaabo xukuumadda Somaliland ku hawlantahay sidii ay mar kale dib ugu furi lahayd isla markaana xayndaab loogu wareejin lahaa ayaa waxa dhismihiisa qaadatay shirkadda dhismayaasha Ifcom Construction Company waxaana munaasabadii lagu daahfuray dib u dayactirka garoonkan ugu horeynba halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada qaranka gobolka Sanaag General Muuse Jaamac iyo mas'uuliyiin kale waxaan joognaa airportka Ceeri Gaabo airportkani waa airport shaqayn jiray 7 sano ka hor muddo badan ayuu iminka dalku burburay wuu xidhnaa maanta ayay noqotay ilaahay inuu qadaro in la furo waxaan ugu mahadnaqaynaa jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo maareeyaha dowlista hawada waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan faacil noqdo waxaan la joogaa guurtida qaranka waxaan la joogaa madaxdii guurtida nabadgelyada gobolka shirkaddii dhisaysay oo leedahay Ifco Construction Company waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysto muddo dhow furmo bidnillaahi kariim airportkana sida la sheegay waa 70 sano ayuu joogaa diyaaraduhu maalin dheeli waa ka degi jireen laakiin dib buu xumaaday marka haddeer dib baa loo hagaajinayaa maanta falilaahi alxamdu waxaan dhagax dhigaynaa waxa weeyaan dib u dhiska madaarka Ceeri Gaabo oo hadday tahay terminalka qayb cusub iyo waxa weeyaan iyo rehabilitationka qaybtii lagu sameeyay iyo xayndaabka ama waxa weeyaan fenska bedka madaarka oo la sugayo insha Allah biidmillaahi kariim aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo maareeyaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada wixii qurbaha ku nool oo deegaanka u dhashay kaalin weyn baad ku leedihiin dalkan waxa iskale iyo deegaankaaba dadka u dhashtay haddeenaan magaaladeena aanan qurxin safety-geeda amnigeeda aanan ku hanin gacmeena bay ka baxaysaa waxa isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda dhismayaasha Ifcom ee dhisaysa garoonkan injineer Caawil Cali Xuseen farxad weyn bay noo tahay inaan ku hadlayo magaca Ifcom Construction inaanu maanta joogno madaarka Ceeri Gaabo madaxdii gobolka dhagax dhigayso iyo golayaasha qaranku anagu Ifcom Construction ahaan kulay guma cusbin gobolka mashaariicda ugu waaweyn ee dalka ka socota ama dayaxaha noqoto ama qaar kale badan ha noqoto kulay aad baan soo garanaynaa waxaan yeeltay Ceeri Gaabo inaan hormado ahaa waxyaabo badan oo kale gobolka ku soo kordhinaynaa waxaan kaloo idin sheegaynaa inuu ran weyn ku xigi doono insha Allah isna dhisaynkiisu dhameystiran yahay anigu mahadnaqayo injineerada Richard Architect insha Allah isagana waxaan rajaynayaa insha Allah anagoo face-ka gacanta ku hayna in ran weygana la bilaabi doono haddii Ilaahay ka dhigo waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uul ku hadlay afka xubnaha golaha guurtida Somaliland oo ku sugan magaalada Ceeri Gaabo iyo Chief Caaqil Caynaanshe Caynab Cali oo kamid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag maantana waxaan jecelnahay reer Ceeri Gaabo insha Allah inuu si khayr leh ugu dhamaado mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maareeyaha duulista hawada waxa kale oo iyaguna mahadnaq leh maamulka gobolka iyo degmada iyaguna u dhiiraday ee inta u dib jiray ee raadinaya wax qabadka gobolka maadaama ay maanta garoonka Ceeri Gaabo dib loo furayo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay waa horumar soo kordhay ha sii dhaboobo insha Allah bidmillaahi kariim ha noqdo kii laga duulo dhagax dhigii rumooba oo la anfaco oo lagu guuleysto ayaan Ilaahay ka baryayaa ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro oo ka warramay mashaariicda xukuumadda Somaliland sanadka ka fulinaysa gobolka Sanaag oo uu ka qayb yahay buu yiri garoonkan diyaaraduhu maanta mar haddaan xagaa u dhignay insha Allah bisinkii weeyaan kan waa bilow si laakiin mashaariic badan oo horumarka ayaa soo socda waxaynu dhagax dhigi doonaa gurigii madaxtooyada insha Allah isagana waxaynu dhagax tirnaa wadada u dhaxaysa karinka iyo Ceeri Gaabo waxaynu dhagax dhigi doonaa dekadii mayd insha Allah waxaynu dayactir ku sameyn doonaa iyana wadada tabca waxa weeye mashaariicdu waxay ku timaadaa kolba sida ay u sugan tahay nabadgelyada gobolka inaynu qacmo adag isugu geeyno nabadgelyada inoo xasishay ayaa ka koowa waxa la inooga baahan yahay dana yaroo shakhsi iska jiro nin baa laga yaabaa inuu la beertayda halkan oo hayday sidii deerkii jaamacadda baan naga qabsatay danta shakhsiga markay tagu timaado waa laga guuraya Yunus Sheekh Ahmed Universal TV Ceeri Gaabo